la horkeenayaayo laga iibinaya la soo raafay oo isbaan dagaalkan niyad ku iman bareer ku iman ku talagelin ayaa la keenayaayo kaasay rasaastaydu ku dhamaanaysa iyo awoodeydii iyo energy-gayga iyo waxay guriyo dharo markaasaan inaan wax leenayo aan u qaadanayaayo isla wali waa nin dalkii ka taliyay mar walba uu ku soo xaabinayaayo dabada tara isla basbeelaysaano way ku daalaysaa moogta waayo mar hadduu wali dalkii gacanta ku hayo uu keenaya ciidan maalin walba uu soo helaya maalin walba rasaas uu soo helaya oo dawladda jiraab ma aragtay siinay marka tabay u baahan tahay waxa ka duwan bay u baahan tahay in loo adeegsado marka la doonayo nidaamka talisa in la rido wax kale oo asaasi ah jiro oo la adeegsado mugta oo aan ahayn uun intaasaan dilay maantana goobta intaas ku dhimatay maantana halka intaas ku dhimatay erey gara hadii loola tago godol ma waayin hadii raga la ii keenayo xidhiid lala sameeyo leeyahay magaciin bii waayi waynu wada dulmanahay isu keen oo aynu halkan ka wada jeesan oo aynu waxa iyo ujeedada ku wada dagaalgal inagoo taayta ku heshiisa ma bay diideen xaqana wuxuu uga sheegi jiray oo meed ogtahay nimanka dagaalamaya haday ku qabtaan waxaan nimka afka soo marinay runtii ayuu xataa isticmaali jiray oo oran jiray ragay waxa ku sameeyaa buu ilaahay maaragtay ama intay ku gowracaan oo ku qabtaan oo ku jarjaraan oo waslad ku jaraan ayay hilibkaaga intay karsadaan bay cunayaan wata tel loogu sheekay adigina wax xiriira kaama hayo ninki iyo wax beenina iyo wax cadayna iyo waxa tahay adigu moogtay kaama hayo dabadna wuxuu soo jiray mar hadii kuwii xagga ka soo jeedaad u carad lahaydna taa lagu sheegayo wax warana aanad ka hayn xagga dambena xabad lagaala fadhiyo teego adiguna maxaa ka galay ku miisoon oo niyad iyo uu dagaalamayna naf baa haysay moogtay ka soo horjeeda moogtay erey gara hadii loola tago godol ma waayeene gargaarkoodu wuu dhimi lahaa guuldarrada taalle lafa garina way jabin lahayd maalin gudaheeda gobanimana way dhalin lahayd loo gudboon yahay gacalnimana way hubin lahayd aan la goyn karine wali gumucu meel baydhsan buu gawda ku hayaay gariirkaa maqlaysaan ka dhow goobahaan rabay garqaadkeedu waa leexsan yahay waana gudayaay garar loo maleeguu ku riday guura socodkii guudkeedu waa wada fin iyo gaatir iyo booge hadday gooli baar tahay waxaa gabay raggeedii guyaal bay rarteen gocorro shaydaane iyadoon goblamin baa haddana geela loo hadhaye goldalooladeedaa ka badan galalka ciideede gelin looma wada sheegi karo xaajageeda weyne gawdiidka iyo quusta waa lagu gumoobaayey kol haddaan hilaab lagu gudbayn giriftan mooyaane gabgabteedu waa xubin intay gowrac leedahay geediga cagaa daaliyaa lagu geeyoodaayey gubuxsiga marunbay tirsiga meel ka soo geliyey gargaraacideediyo haddayn geedka didinteeda maxaa la sameeyaa fadhiguunbaa ugu liitay haddii maanta aanay habaysnayn oo waxba ku heshiis ahayn oo ay kala qoqoban tahay oo kala qaybsan tahay kii ka dhashay baa sida u galay waxa kala qaybiyay hadii ilaahay ka dhigo ku eegay ninkan cadowga ku daawanaya mutacallimkeedii iyo siyaasigeedii buu ahaa intii indhaha u noqon lahayd hadii iyada la leynayo fool xumo iyo dulmi lagu sameynayana ka dagaalami lahayd dadka wax u sheegi lahayd midayn lahayd hadii alla ka dhigo maaragtay dagaal gelin lahayd ayuun baa loo adeegsaday oo kala qaybisay nin waliba qoladiisii igu soo daba fayla dabadeedna qorshihii maxamed siyaad barruun baa suura galay markii qorshe beeniya oo ka heer sareeya lagu gudbi waayay ayay isaga kiisii socday marka haday maanta xaraash tahay oo maalin baneenintu u yimaado wuxuu doono ku sameynayo waxa gabay raggeedii inaan kay dhashay iyadoo iskuulka ku dartay wax ka bixistay korisay ku taabtay oo ay kay ku aarsan lahayd iskaga gudbi lahaa maxamed siyaad barre iyo ficiladiisa oo kale iskaga gudbi lahaa ayaa gabay kiiba kaalintiisi marantay waxaan ogahay maanta Djibouti kulli waxa laga yaabaa in sida xooggaal u ahay loogama ahay ayaan darada maanta Soomaaliya ka taagan shacabku muugaysan waxa ka mas'uula siyaasiga iyo mutacallimka waa labadii indhaha u noqon lahaa ummadan midayn lahaa in ay wada dulma yihiin u sheegi lahaa inay wax ka wada maqan yihiin u sheegi lahaa cadow qura inay leeyihiin u sheegi lahaa labadii ay ummadi kaga bixi jirtay sida caadada looga bartay taariikhda kaga bixi jirtay dhibaatada ay ku guuri jirtay adeegsan jirtay labadii baaba malikul mawt ku noqday sida taariikhdu hadhowto ay qori doonto
garashadu hadday ruux waxaan u soo galaynaa bal hadda ninka keli taliska la yiraahdo ama dictatorka inuu naqaano sifooyinkiisa oo aad uga muuqday arrimaha aan ka sheekaynayo halganka dhexdiisa garashadu hadday ruux la tahay suu garanayo garaadkiisu suu qabo haddii loola garan waayo gardarru u qaataa ninkii yiri garaadkiisa xaajadu markay gobo'da iyo gowda culus joogto keligii ninka shaantay uu gola ka fuula adigoo waxa lagu yaqaanaa ninka keli taliska ah maalinta arrintu halka ugu culus ugu halisaysan marayso ee ay ahayd inta la isu yimaado in la faaqido oo la faguro oo lagu guulo oo lagu dhaxo oo lagu xiqo oo lagu daalo ayaa saa loo soo fadhiisanaya markaas oo waxba hadlina soo arrinta tan iyo ka hadalkeedii xalkeeda ma aha sidaa gola ka fuulka waxa la yiraahdaa waa adigoo imika xaashi halka iska fadhiya leedo waxa lagu xukumay inaad imika daa gabay tiriso aad imika alifto dabadeedna waxa ka soo dhiiqay uu yiraahdaa waa waxaan nuxur yeelanay de waa nin cunaa la qabtay ama sida yeeliyo wax waliba ku talagal bay ku qabsoomaane waxa weeyaan kalitaliska waxa lagu yaqaan had iyo goor wuxuu soo jeediyaa talooyin aan laga fakirin oo la shiilin oo la tijaabin oo had iyo goor wixii soo dhigay wuxuu yiraahdaa si fududo maaragtay hadhowna isbixin weyda magti xaajadu markay gobo'da iyo gowda culus joogto keligii nin gaashaantay uu gola ka fuula si fudud buu isaga yiraahdaa talada hadalka uu yiraahdaa gadaashiisa baa durbaan laga garaacay labadiisa geesood ma jiro ruux ku gelaya kalitaliska nin ma ogolan yiraahdo waynu gudboonahay aan iska barbartaago waa inuu nin waliba xagga dambe durbaanada la tumayo iyo waa inuu xagga dambe uu ka maqlayaa laakiin de ma ogola dhinacan cid barbartimaata gadaashiisa baa durbaan laga garaacay labadiisa geesood ma jiro ruux ku gelayay arrin lama guule ee warkuu gura yiraahday dadka wuxuu u gacan haadiyaa qof iyo gaarkiisa gogol uu ku shaashoonayaa loo gudboon yahay gendi iyo dhukaan buu qabaa cudurro guumeede sida guray fallaagoobay buu gooni joog yahay kol hadduu nin mawd lagu gudbaday tiisa uga guuro xil buu gudoontay ka bayl gudashadiisii seetada nin goostaba wuxuu geystay lala yaabi afrika waxay ku cuntahay marka ninkii tagay ee xididayste ee meel walba haddii ilaahay ka dhigo maaragtay oo haddii ilaahay ka dhigo lug gashado ay ruuxdiisa iyo gilgilidiisu adkaato markaasuu bay isku waafaqdaa inuu xun yahay inta uu dhow yahay ama uu wax laga qaban karo ee ay fududahay waxyeelidiisa iyo rididiisa intuba heshiisku ma aho inta iyadu murmaysa midna leeyahay waa wanaagsan midna leeyahay waa xun yahay ayuu jiidanayaa tagayaayo maalin wax ka qabashadiisu ay aad u adag tahay ayaa la isku raacayaa inuu ninku khariban yahay seetada nin goostaba wuxuu geystay lala yaabiye gaarayuunki nin hadduu tashiga guuta faran kali ganaanaysto inteenan maanta halkan fadhido oo talo wada leh oo la yiraahdo talada ummadda intiina saa wadaaga bal ka warrama waan yiraahdo haddaba intiinu iska hurda taga oo intii laynoo wada diray anaa ku filane waa mahadsantihiin aniga waniga warsuga nin hadduu tashiga guuta faran kali ganaanaysto gaarayuunki iyo shinnida guruuciya dhaadheerta giryaalayaashiyo fulaha laguma guuraanka gumarta iyo maajeenta iyo geedxunka iyo tuuga gungunaafka iyo maarta iyo gocorka aan quudhin kuninoo guraangura hadduu goob isugu keeno guufkiiyo haddii hooda iyo giniga loo qaybsho dadka kale intii gudan haddii gararka loo jiido gubaabadeedii haddii loogu godadleeyo hadallada galoofta ah haddii loogu malagaaxsho gurya noqoshadeedii haddii lagu gawaan raacsho gabaldaye sidiisii hadday laba gardaymooto shimbiraha gabraatiya hadday galow wax weydiiso kol hadday galaydh soo kallahay laabta uga guuxdo garbaraar cadhaysani hadduu gooyo taladeeda guulkeedu dheeraa sidii genyadii bixin waxaa lagu yaqaanaa kalitaliska ummadda markuu dhex galo ishuu saa u mariyaado inta aan hadalkiisa waxba ka soo celinin inta markuu hadlayo hoos wax u eegaysa inta ama hunguri ama kursi ama magac u xilanaysa darajo intaasunbuu xilka u dhiibtaa intaasuu urursadaa dabadeedna inta wax garatana xadhiguun baa loo jeedaa intaasubaa daba yaacda
uun xaqiiqo iyo wax dhacay oo maaragtay dee jiro runo aan arkay baa ilaa maxamed siyaad barre ka shalay jirana uu gabaygu ku saabsan yahay mid maanta jirana uu ku saabsan yahay yani waxa weeyaan si fuuma ficilun buu gabaygu ka hadlayaa qof hebel la yidhaahdo ka hadli waa ficilkaa wixii la yimaado uunbuu ayuu ku saabsan yahay dabadeedna intaa markuu sameeyo dadka marba intuu shiriya uunbuu si yaroo fudud wax ugu sheegaya waayo wuxuu yaqaanaa goldalooladeeda oo si yaroo fudud buu u qancinaya wuxuu leeyahay oo ma ogtihiin sidaa iyo sidaas baynu samaynaynaa beritoyna haddii laakiin halkaa ka dusaynaa dabeetana halkii baynu gelayna dabeetana waa khalaas berito markay beenowdana wuxuu leeyahay waan yeeli lahaay sow hebel iyo hebel iyo hebel sow kuwani ima haystaan faraqa iyo dacalada iyo dhinacoo kama aan dhaqaaqi waayin maalinba shanta uu isirado waxbay karteen ayuunbuu dadka ku reebaya dadkiina kuwii bay ku jeesanayaan ilaa wuu garanayaa inay ku jeesanayaan iyagu ma qiimayn karaan yaa qaldan iyo xaggu qaladku ka jiraan intaa la isku jeedaa buu isagiina maaragtay ayuu dhaqaaqayaa guulkeedu dheeraa sidii geeyadii bixin oo la isweydiin kara wax laga geeyada bixin maxay ahayd geeyada bixin waxa la yidhaha waxa jira ceel la odhan jiray waxa jira ceel la yidhahdo bixin bixinadu weliba way badan yihiin kay tahay anigu qudhaydu ma aqaano laakiin waxaan u maqli jiray geeya ceelkaa bixin joogi jirtay baa la yidhi waa la yimaadaa waa laga cabbaa geeyadii baa meesha darkii bay ceelkay dul joogtaa waa laga tagaa kalka dambaa la soo noqdaa waa geeyadii oo halkii iska joogta haddana waa la tagaa waa la soo noqdaa berigaa farduu qimay lahaynoo waa lagu dagaalgeli jiray oo dee may maqnaan jirinoo nin kalihi waxay ugu jiri jirtay dee waxay u joogi jirtay guriga ama meelaan ka fogeyn uun ka warhayn jiray markaas dabadeetna markii kal kasta loogu yimaado geeyadii oo halkii iska joogta halhays baa soo baxay la odhanayo war geeyadii sooma cabto oo ceelka kama tagto oo colaad laguma tigo yacni ninkii lahaa war xitaa miyaanay colaadi ka dhicin ciddii lahayd miyaanay dagaal gelinoo aanu dabeeto u baahan geeyadan inuu maaragtay dagaalka u fuulo dabadeedna waxaa ummaddii unbaa la leeyahay mar haddii taasi ku dhacdo taasi ku dhacdo taasi ku dhacdo sidaa loo galo sidaa loo gado ay iyadu maaragtay qiimayn kari weydo xaaladda guulkeedu dheeraa sidii geeyadii bixin weligeed fal baa loo guntaa yani uun iminkana waa dhaliishii dadka dhaliil maaha runtii waa halka ay taagan tahay yani aqoon iyo aragti iyo siyaasad iyo mid walba ummaddu dee caawa kuma dhaliila halkay joogto waa garaadkeeda waxa weeyaan dee ninkii dee waa si yar baa loo khiyaamaynayaao kuma dhaliilo oo ila cidina waxba uma sheegin intii wax u sheegi lahayd waa ninkii ka sheekaynayay oo waa intaa indhaha ka ridaysay laakiin waa sidan dabeecaddeedu weligeed fal baa loo guntaa lagu guhaamayey marun bay gadoodaa siday gees loo-aa tahaye galab xiisaheedaa wakhtigu kaga gaboobaayey ninuunbaa ku guuree iyada geediwo weliye marka wiil ku guro naarta iyo godadka yaahuuda ayay kii jannada geyn lahaa dayasha goobtaaye marka uu galaabuu iyaga guba yidhaahdaaye markay raar guraysaba ninbay gudub tidhaahdaaye waa sidaasoo waxaa looga bartay had iyo goor innaga ayaa guusheenna waxay iyo guuldarradeenna meel qaladay saaran tahay waxaa dhacay hebel baxaashi baa ka mas-uula laakiin haddii uu abubakar yimaado waxaas dhacay waxaa daweyn kara abubakar oo yimaada hadda waxaa la doonayaa waa waajib gobannimo moogta dabeetna xaashi baa la riixayaa marka uu dee dhammayste ee uu dhaawaca geysto abubakar baa la keenaya waxa abubakarna markaasaa la odhanayaa dee waa kuwaas mar haddii abubakar yimi kun fa yakuun iminka haddii ilaahay ka dhigo maaragta markaasna wala intuu barkintiisa qaato seexanaya oo abubakar baa dadka guriga geynayo ku filan hawshii ummaddu laga sugayey waa dee dabeedna markaasuu isagiina isu qaadanaya markaasuu leeyahay waayay isugo isagu dhisu dee inuu isbeeniyo ma doonayo isla dadka kuwa saasuu ku arkane malaa adaan isoqoonne waa niyo malaa ninkaasaa tahay oo maaragta markaasuu isaguna wax culus aanu qaadi karin buur culus iyo mas-uuliyad culus oo aanu qaadi karin buu markaa waad arkaysa inuu la liito oo la gurguray haddana markaasuu odhanaya iska dhigaya markaad eegto iska dhigaya sidii nin la ordaya ma og tahay oo isaga waxaa ku ceeba inuu yidhahdo war waxaan anigu keligay ma soo bixi kare ee maaragtay u yeedha maaragtay oo isaguna wuxuu isleeyaan maaragtay marka wiil ku guro naarta iyo godadka yaahuuda ayay kii jannada geeyeen marka mid cadaabo ayay warkani waa khayrlaawe ee mid jannada toos inoo geeya janno toos loo tagaana dee ma jirto ilaa aad cadaabta sii marto jannadu waxay ka dambaysaa had iyo goor cadaabta moogta marka qolyadani waxay ku leedahay waxaan doonayaa inaan duullo oo aanu jannadii toosuun ugu degno markaa nin nala duula yaan u baahannahay dee kaana la heli maayo dabeetana xaasha u imaanay waxaa jannada maadna geynaysaa haaba odhanaya marka
salaam buu ka dhiganaya intuu iyagii saa isu dul saaro ayuu jannadii isugu ku boodaya markaas uu odhanaya inta kale waa idinkaa marka wiil ku guro naarta iyo godadka Yahuuda ayay kii jannada geyn lahaa dayasho goobtaaye marka uu galaabuu iyaga guba yiraahdaaye markay raar guraysaba nibay gudub tiraahdaye gabna uu gubi way qoosisaa gaawe Cumarow garabdaar ninkii lagu buqraa geedada tarawaab mar haddii ay dhacdo nin aan waxba la iman haddii la iska caleema saaro ilaa dadka waxa wax lagu siiyaa wuxuu la yimi oo leeyahay xalay baan riyoodayo ninka guusheenu ku jirta waa xaashi yaa dabeeto aroortii markaa tirada hawshii ka waran isagu riyaabo kula baydhaya badee waajiba ka hadli maayo wuxuu soo qaadanayaa uu weli ilaa waa nin xalay loo riyaal meesha ku yimi waa ta ka dhacda arrimo dee maamul iyo siyaasad iyo hawl u baahan ayaa la odhanayaa wallahi haddii hebel iman lahaa inaanay waxaas haddii ilaahay ka dhigo maaragtay dabeetana isagii baa imanayo ilaa sidani nolosha kama suurowdee markaasoo dabeedna ayaan darradii imanaysaado maaragtay saasuu leeyahay garabdaar ninkii lagu buqraa geedad tarawaab meela loo diran iyo carshi iyo waxbuu ka sheekaynayaa iyo riyo iyo dee hawl cid kale qaabilsan tahay garabdaar ninkii lagu buqraa geedad tarawaabi garmaqaatayaashiiyo dadka beera ruux guran halkan beydkaas un baan doonayaa inaan sheego ummad yahay inaga dictatorka abuura dictatorka iyo kalitaliska inaga samayna markaynu samayno ee qalabayno ee hubayno ee u dhamayno ee uu dabeedba isagoo galka seefta kala baxo ee wax gumaaday cagta wax mariyo aynu hadhowta calaa allah soo arkin waa loo sacabinayaa waa loo mashxaradayaa iyadoo uu qaldan yahay baa lagu raacayaa iyadoo uu qaldan yahay baa la difaacayaa iyadoo uu qaldan yahay baa loo hiilinayaa markaasuu marka wax walba yidhahda cid tiraahda maya uu arki waayo ayuu isaguna markaa waxaanu ahayn ayuu isu qaadanaya qofka haddii aanad xariq qabta hadaan qofka jirin ilaa had mar walba sax baa tahay isaga qudhiisu xaqiiqadiisii wuu ka tegayaa wuxuu odhanayaa wuu soconayaa marka hal la ogaado dictatorka ninka la yiraahdo hadii bani aadamka abuura moogti inaga qalabayna ninka inaga gacan ku siina inuu xarkaha goosto garmaqaatayaashiyo dadka beera ruux gurane gambo niman la soo bixin haddii guula lagu waabo markuu dhaawac geystaba haddii loo gargarateeyo isagoo canaan lagu gudbiyo gaaran filanaya giblo iyo haddii sacaba lulan loogu gola xaadho keligii inuu guurti yahay maalintaa gunud isagoo dhaawacii ugu weynaa geystay oo isla talo maanta maxaa lagu odhan doonaa ma intaasaa lagu jari ma maxkamad baa lagu taagi miyaa lagu casili oo uu yimaado mise waaba la sacabinaya walaa xawla walaa quwata illaa billah markaas oo war waxani waa ari wax meesha wax garanayaba ilaa haday wax garanayaan way ku qaban lahaayeen ilaa way arkayaan inaad khaldan tahay yani sidoo isagu uu fakaraya waa caynka boogti gibla iyo haddii sacaba lula loogu gola xaadho keligii inuu guurti yahay inuu keligii wax bari aadam oo jira inuu isagu keligii yahay oo inta kale aanay macna lahayn ilaa haday macna leedahay uun macni way odhan lahayd oo qaldan tahay keligii inuu guurti yahay maalintaa gunudii marka uu gadaan gacan togaaleeyo ayuunbu waxaan ganac lahayn sii gurguriya marka leedo madaxweynaad ee uu kii xaashiyo madaxweyne ku xigeenka ku darsado ee kii riiraasho wasiira ku darsado ee kii gaariyo oo agaasimo ama director baa mala halkan laga yiraahdaa oo ku darsado ee la oran waayo kaagii ku ekow oo kuwan kale iska daa maalinta dambu ku oranayaa baabuurka baxaya amarkiisa ee xaabada doonaya waa in aniga la iga fasax qaataa يا بني آدم كحد عليا معناه هو حويان ديكتاتور كما جرو مركا أو جدان قاعد تقال بين البركو فرقليو اللي قبل وايو أيوم بو وحن جانا على هين سي جرجورياي كل هدو طلابة دا جرجرو قاتن يبودو ده حاجة ده اللي سلتبي ويلقلب هذا يشير مر هدو طلابة دا جرجرو وأنت اللي يسكت شيء أمل له هردو وماركت أرد كهوست كحدو مرو دمعي أو تجي أو شيء تيجي مبالي ورنيكي هرتا مي بلاد بشيك توجبا waxaa lagu godlaasay oo gaar tahay gurraanidu mar waa dhalash iyo gacan baqaabkeed marna waa calool garacsida iyo xaalku soo gala kol hadaanay maankaaga gadin talana ka geynin gurraacnaanta qiil lagu saxo loo gudbaa jiray
nin hadduu go'aanka iyo sharciga gowrac ugu jiido hadba goondhabaaliyo hadduu goodi furan keeno gacalnimo ha loo yidhi hadduu gubasho sii beero guudaan haddii uu ku liqo ereyga geedaysan runta wuxuu u guulguulayaa way gundheer tahay goldaloolo qura maaha iyo goonidaa taliye gedaan loo filayn baa jirtiya geelladaaq kale ninkanoo aynu caleemasaaradoo doorannay laakiin aynu u naqaano inuu guracan yahay nin mar haddii uu u dhashay guracnaanta oo aanay wuxuu hooseeyo kale jirin si loo saxo iyo si loola socdo lama waayo waayo waad ku talagelaysa waxaad xaashi ana aqaano wuxuu doonayaa in sidaa iyo sidaa loola hadlo sidaa iyo sidaa la yeelo sidaasaa loo wadaa sidaasaa wax loo dhacsiiyaa yani waa la yaqaanaa hal baaba Soomaalidu tiri toojaba nin lehi toojo nin lehi toojo nin lehi baa toojo yani toojo nin lehi baa tabu ku maalo yani ninkaas baa u yaqaan hal baa laga maarbo hal baa maamaada ku jirta oranaysa hadday tahay toojo tahay oo ay cararto aanay maaragtay dee aanay ogolayn in la maalo nin kale baa yaqaana sida loo liso wuxuu u raadinayaa si uu ku maalo isagu baa markaa helaya siduu ku maalana waana la yaqaan waanu maalaa qofkuna halkama liito weligiiba ha guraacnaado haddii aanay wax u sheelayn u qarsoonayn si loola socdo lama waayo laakiin ayaan darradu waxay ka dhacaysaa marka guraacnaantiisu aanay dhalasho ahayn laakiin xeelado u hooseeya oo aanad adigu la ogeyn ay jiraan aanu daacad ka ahayn arrintan uu wado iyo xilkan uu hayo isagoo runta arkayo oo danta arkayo uu markaad hadasho adigoo bal hadaraliga waxaasho walaal waxaan doonay ara ka sii qaado waayo de waa halkan inagu ereygan reer magaalka ku naano kiisiska waalka uu garanayaa danta laakiin uu isdhaga maraya mogti marka nin hadduu falkaa ku dhaqmo maaha waxaan wax kale uma jeedo oo guraacnaantii u dhashay way ka weyn tahay oo baroorta orgiga ka weyne arrin u hooseysa oo aan weli la garan ayaa jirta de xaasho in marka dooranoo la yiraahdo waa xaashow qolo kale ku tirada makhaayada soo xidh oo dabeetna yiraahdo waa soo xidhaya waa xaashow makhaayadii aynu wadno maxaad ku hadlaysaa buu odhanaya hadda anagu heshiis baan ku rahayn inaan markii hore waxaan ku heshiisanay in la wado laakiin qolo kale ku tiri soo xidh dabeetna anigu markaa anigu hawshaan isku ogeynayno aynu wadno wuxuu dhayaa baad naga waxaad ku hadlaysaa wadi mayna waynu xidhayna yani wax u gaarun baa jira weeye markaas waa tilay ka dhigo tala u go'an isaga u goonayaan adigu la wadaagin ayaa jirta hadba geedis maris baa u hadha guul dag leeyahay miyaan geedi baabo warladu gelina waayeen gole miigan geed sheegan iyo garangar muunaysan gudban iyo cod laba geesa iyo guurti kala soorta garnaqsiga mudicigoo tashiga gooni uga showray gedalabe madaacalay hadloo dhaabadba aan geystay kala gurasho meerti iyo rogaal la isla guurguuray mahmaaho wada guuna iyo gabayo raacraacay guddoon dhacay hubaal iyo go'aan la isku gacan qaaday shan godoo murtidu leedahay iyo gororka suugaanta gedda hadalka loo roga gasho iyo marin gobaadeed gobannimadu waa libin ku taxan geedi nololeed waa gumaro aadmigu hantiyo guusha ugu weyn gedun buu ka leeyahay khalqigu maalintuu gado guddoonkeedu waa faral siyaa loo gafaajirine marka uu gabaabsiyo xilliga laga guweynaaday ayuunbaa ninkii gudan karaa dhan ugu guura gobannimadu wax kale maaha waxa weeyaan waa geedi ka mid ah geediyaasha nolosha oo marka hankuna ka weynaado baahiduna ay ka badato habkii markii hore loo dhaqnaa ama kooxo ama qabiilo ama kuwa ka dambeeya gumaysiga marka ay noloshu sidaa isku bixin weydo ee qofkuna ka han weynaadee ka garaad sarreeyo habkaa nololeed ayuunbaa kan kale ee gobannimada ah loo guuraa dabadeedna maalinta loo guuro ee lagu dagaalamo ee nafta loo huro dee bani aadamku ujeedu ka leeyahay inuu ku dhaqmo u raadinaya ma caabudayo moogti mana aha haddii ilaahay ka dhigo sawir intuu isoo dhigo sidaa u daawanayo inuu ku dararaya ujeedu gadashadeeda iyo inuu wixii ay u baahan tahay ku iibiyo ujeedu ka leeyahay haddii ujeedadaa ku bixiyo